السلام عليكم أصحاب سوري وهذا ما أنتوا حنربعنا هنك يديك سوق بيو عشر كده سدحاد كوساب سنة مايكروسوفت وورد توتوريالز مركا عشر كنا سدحاد كوساب سنة ما أنت سبيلين عن جرامر أري بتغرتي أري جوكا خلدمي ما نقرن السيدي صح ذا هاي مركا حبك هذا الصحي لهاي سيدو كلا وورد كوتوسينا يا إن سحتيد wixii hadii aadan garanayn marka sidoo kuur ay ka markaad u qortid haddana uu ka khalad ka noqdo inaad saxdid hadda midna waxaan qorayaa this is not sorry sagaba saxay hadda waxaan doonayaa inaanu bal saxno halka sentence waxa ku jira saddex khalad kan waa khalad halkana waa khalad halkana waa khalad marka saddexda khalad ayaan doonayaa inaan saaro spelling errorska laba habad u sii kartaa qaab dheer qabna waa qaab dheer waxa weeye inaad review tagtid dabtana halkan tagtid aad tiraahid spelling and grammar qaabna waa qaab kale oo ka fudud qaabkaas oo waxa taabanaysaa F7 oo ku yaala keyboardkaaga qaybta ugu sareysa F7 baad taabanaysaa batiyo kale ku geynaya waad aragtaan marka ereyga ugu horeeya ayuu soo qabtay si weeye halkan laakiin isma waxaan rabaa inuu halkan ka soo baxo this is not correct statement macnaha kani ma aha statement sax ah baan rabaa inuu ka soo baxo hadda laakiin dii wax la akhrin karo ma aha soo ma aha marka sida taabatid xaqan oo kale box yar buu kaaga soo saaray boxkan wuxuu kaaga soo saarayaa waxyaabaha aad ku sii kartid ama words ka isticmaali kartid si maadaama aan English ka laga helin wixii marka ugu horeysa is waa isticmaali kartaa ser waa isticmaali kartaa six waa isticmaali soo waa isticmaali kartaa sin waa isticmaali marka ereyga meesha ku haboon waa maxay waa is way is marka waxaad sameyn kartaa changing waa sameyn kartaa kanaad ku bedeli kartaa ignore waa iska dhigi kartaa aadna waa dhigi kartaa marka change ma sameynaya meeshii waxay noqotay is bay noqotay okay next buu tagayaa ka ku xiga buu tagayaa isna khaldan buu tagayaa okay nqt ba ku qorantan nqt english ka laga helin marka wuxuu yiri ma not ba doonaysaa ma net ba doonaysaa ma nit ba doonaysaa ma nit kala doonaysaa ma not kala doonaysaa waxba waa isku wada dhawaaq marka waxaan ku dhahayaa waxaan doonayaa not ba doonayaa okay marka kan marka state buu inagay statement marka statement waxa ka khaldan waan fahmanaa halka amta iyo inta dhexdeeda ba ba ka dhiman waa kan xagan ku soo qabtay kaliyeed buu soo qabtay marka wuxuu yiri statement marka change bay iyadan isticmaalana saas okay waxa wuxuu yiri waa dhamaystirtay sixidii grammar kama check-grainti grammar another thing aan doonayaa ogana waxa weeye wax loo yaqaano dashes wax kala maaha maanta waxaan idhi today is beautiful day okay waxaan idhi today is beautiful day marka waxaan rabaa inaan isticmaalo beautiful erey aan ahayn laakiin la macnaa ama ku soo dhawo xiriir la leh dashes wax kala ma qabto intaas uun buu qabtaa marka ereygi uma tagayaa dabtana waxaan tagayaa meeshii xaqan waan ka dooranayaa F7 waan taaban karaa halkan dabtana halkan tagayaa waa kan t-shirt saacadna ku qoran tahay sidoo kale wata shift plus F7 hada taabatid t-shirt saas ku saaray okay saasaan ugu dhuftay xaqan waa kuwan ereyadan oo dhan baa ku dhow ama la macna ah boqolkiiba lama macna ah laakiin way ku dhow yihiin xiriir bay leeyihiin lovely baa isticmaali kartaa wadii kartaa today is lovely day waa maalin fiican attractive day maalin soo jiidasho good looking maalin churches stunning waxaas oo dhan xiriir bay leeyihiin wax loo yaqaan beautiful marka instead of isticmaal lahayd beautiful waxa isticmaali kartaa ereyadan oo dhan waa isticmaali kartaa marka ka doonto ku bedelo aan hada good looking ka san rabaa inaan ku bedesho falaadheer baan soo furayaa dabetana waxaan dhigi karaa insert ma dhigi karaa halkaas aan ku gelin karaa copy na waan dhahan karaa waan qaadan karaa oo document kale waan laadi karaa insert tan dhaho halkeeda iyada taagan buu inuu bedelay beautiful wuxuu bedelayaa good looking waka uu bedelay hadii kale aad copy tiraahdo aad qaadatid meelaha la aadina waa caadi oo meelaha hadhow tigitid iyaduna waa choice kale ataa uu bait gareys halka okay waxa jira wax la yaqaano word counting wax kala ma aha waa in ereyada documentigaaga aad ogaatay inta ay yihiin okay xagan hoose waad ku ogaan kartaa halkan oo kale eeg start page-ka ayaan tiash koowaad baan ku dhiganay halkan waa maxay waa words comsa waa ku helaataan word halkan waa taaban kartaa waa kan xagan kuugu saaray dialog box ka yar
marka wuxuu yiri pagesku waa hal page information kodan buu siinaya words kugu qoran waa 22 characterska xarfaha kugu qoran wuxuu waa no space marka spaceka laga reebo waa 107 xarf hadii spaceka lagu daro oo characters with spaces lagu darana waa 128 inta si leeyihiin 20 space waa macnaha 20 space waa macnaha ku jira paragraphsku waa 6 paragraph linesku waa 9 okay waka taas information kugu siinaya inta ayaan rimaanteena idin la wadaago aad iyo mahadsantihiin hay laawina inaad channelka subscribe saartaan videogana like saartaan assalamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh